bishii labaad ayuu dilkan u dhacay labadii bishana waxa la helay midkii marxumadii Ruqayya Saciid ayaan le waxa laga joogaa in 2 bilood iminka runtii kiiskanu haday tahay booliiska haday tahay CID-da haday tahay maxkamadda si wanaagsan ayay la hadda u socotaa maxkamadda waxay soo gudubtay waxaan umaleynaya iminka ilaa muddo bil ah inay xagga maxkamadda arrintu ay ku jirtay 5 dhageysi baa laga dhageystay waa kiiskii ugu dheereynayay kiisaska marka la barbar dhigo kiisaska noocan oo kale oo dilka ah waa kiiskii ugu dheereynayay maxaan ku raahdaayay aad iyo aad xil isaga saaray kiiskan wuxuu soo gabagaboobay khamiistii buu soo gabagaboobay gudoomiyaha maxkamadda Faysal oo runtii aan mahadnaqayno wuxuu ku dhawaaqay khamiistii loogu dhawaaqay inuu sabtida kiiskan lagu dhawaaqay natiijada arbacadii khamiistii baan maanay arbacadii baan maanay iyo khamiistii ay doono sabtidina waa kii madaxweynuhu iclaamiyay in la sameeyo roob doon marka maalintaas holiday bay noqotay in kiiska uu noqdo maxaan ku raahday uu dib u dhaco hadii wala yimiyadana meesha runtii laakiin waxaan maray xagga communicationka soo saaristii iyo xaqii ayaa maxaan ku raahday maca askartu way yimaadeen ciidanku way yimaadeen in la soo saaro taasuna may dhicin shalay baan anagu kulanay garsooraha maxkamadda Faysal wuxuu noo sheegay inuu maanta lagu dhawaaqayo kiiskii oo iyagu warqadina ay qoreen laakiin labadan casho waxa la socota inuu jiray xisbiga kulmiye oo maxaan ku raahday madaxweynuhu uu furayay ammaankiisina aad loo adkeynayay shirkaas ayaa hakiyay labada maalmood maantana iyaga hakiyay oo maxaan ku raahday ciidamadii baa maxaan ku raahday maanta sida warkan lagu sheegay waxa iyana la soo saarayay nimankii jeelka ka soo baxsaday iyo kiiskan oo runtii kiiskan marka la soo saarayo aad baa loo ilaaliyaa runtii maxaan ku raahday arrin xasaasiya ilaa hadda intaan anagu ka warhayno haddaanu maxaan ku raahday mas'uuliyadda xafiiska diyaan fadhiyo ku hadlo ama aan ku hadlo ehelada ku hadlo ilaa hadda wax aanu maxaan ku raahday u aragno oo aan isleenahay wax mugdiya ku jira ma jirto aad baan ugu mahadnaqaynaa cadaaladda insha Allah waxaan u malayn doonaa in berrito hadii la yiraahdo ilaa hadda ma hubno oo racdoolina lama siinin laakiin waxaan jecelahay inay berrito arrintaas maxaan ku raahday kiiska lagu dhawaaqo